Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan dhiganaa casharkeennii taxanaha. Maanta waxaan dhiganaa insha Allah casharkan addition and subtraction of identity a sin cosine ayaan ku dhiganaa casharkeennii taxanaha. Casharkan waa casharkii 18aad. Marka insha Allah qaab aad iyo aad u fudud ayaan ku qeexayaa si fiican ila socda. Ardayda Soomaaliyeed ee kale taqaaniin gaarsiiya si uga faa'iidaystaan. Halkan waxaa loogu talagalay arday Soomaali dhammaan inay ka faa'iidaystaan mas'uuliyadda inagayna saaran tahay. Casharkeena ayaan bilaabayaa ila socda si fiican. Si u gaadho ardayda Soomaaliyeed dhammaan waa inaad like saartaa, share garaysaa, subscribe aad noo saartaa. Casharkeena bilaabanaa ila soco. Si aan u faahno casharkan waa inaan qaacidada marka hore qoranaa. U fiirso qaacidadan. Cos baan dhahayaa. Alpha plus beta baan dhahayaa. Alpha plus or minus beta ayaa la mid ah cos alpha cos beta baan dhahayaa. Minus or plus baan qorayaa. Minus or plus sin alpha sin beta baan dhahayaa. Waa isla fahnay. Halka plus or minus kan dhahay macnihiisu waxa weeye marna minus buu noqon karaa marna plus buu noqon karaa. Halka waa plus ma minus buu noqon karaa. Intaa waa isla fahnay qaacidadii sida loo qorana waa inuu qoraya hadda. Waxaan dhahayaa hadaan dhaho cos alpha plus beta yaa ila mid ah cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta baan dhahayaa. Qaacidadu waa intaas u fiirso. Markii halkaas plus tahay halkan minus bay noqonaysaa. Way la fahantaan u maleynayaa. Hadaan dhaho cos alpha minus beta cos alpha cos beta baan dhahayaa plus sin alpha sin beta baan dhahayaa. Waad fahantay? Haye sintii baan noo qorayaa. Sin markaan noo qorayo sin alpha plus beta baan dhahayaa. Plus or minus beta markaa tan waa maxayna waa sin alpha cos beta plus or minus baan dhahayaa. Cos alpha sin beta baan dhahayaa. Qaacidadu waa intaa xagga korka waa minus iyo plus labadaba uu yahay badiga arkay. Labadaba uu noqon karaa kan sidiisii caadiga ah buu ahaanayaa. Hadaan dhaho sin alpha plus beta ayaa la mid ah sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta baan dhahayaa. Intaa ayaa la mid ah waa iska mid. Halkan baa negative noqoto halkan. Haye sin baan dhahayaa casharkeena bilaabana sin 15 degree. Markaa 15 waxaan sheegayaa halka iga timid baan sheegayaa marka ugu horeysa. Waxaan dhahayaa sin 15 waxa iga timid ama ii leegtahay sin baan dhahayaa 45 degree minus 30 baan dhahayaa. 45 30 iga jar waa 15. Marka maxaan dhahayaa sin alpha minus beta yaa la mid ah maxayna sin alpha cos beta plus and minus cos alpha sin beta baan dhahayaa. Intaas ay la mid tahay. Markaan sidaa dhaho waxaan dhahayaa markaas u fiirso. Waxaan dhihi sin baan dhahayaa. Intaas halkan aan keenayaa marka intaas siinta waxaan dhihi sin 45 cos 30 baan dhahayaa minus cos baan dhahayaa 45 sin 30 baan dhahayaa. Markaa u fiirso. Markay sin ii tahay 45 waa radical 2/2 bay tahay. Cos markay 30 ii tahayna waa radical 3/2 baan dhahayaa. Haye cos markay ii tahayna waa isku mid labadaas kaana waa 1/2 baan dhahayaa. Ka bacdi labadan isku dhufo. Horta intaas ka masaxo. Labadan isku dhufo. Waa radical 6 baan dhahayaa. Radical 6 markaan 2 3 ku dhufto. 2 igu dhufaatana waa 4. 4 baan qoranayaa. Minus labadaas ku dhufo waa radical 2 baan dhahayaa. Labada hoosena isku dhufo waa 4. Marka hooseeyo tusku kaada mid baa laga soo qaataa radical 6 minus radical 2/4 baan dhahayaa. Intaa ayaa ii soo baxay. Waad fahantaan u maleynayaa. Markaa sin maxaan dhahayaa intaas ay leegtahay. Waa ila fahantaan jeclahay.
su-aashana labaad haddaan dhaho sin 105 sin 105 haddaan dhaho degree mar kasta maxaad sheegaysaa halkay kaaga timid maxaan dhahayaa sin yahay lamida kan waa hadduu kala jarmayo iminka maxay waan kala qaadanaa 6 baan dhahayaa 60 plus 45 bay iga timid isugee waa 105 markaa sin baan dhahayaa alpha plus beta ayaa lamida sin alpha cos beta plus waa plus cos alpha sin beta baan dhahay kabacdi intani maxay lamid tahay markaa waxaan dhahayaa sin baan dhihi 60 sin 60 cos 45 cos 60 sin 45 marka sin markay 60 ii tahay waa maxana waa radical 3/2 haye cosna waa radical 2/2 markay 45 ii tahay cos markay 60 ii tahayna waa 1/2 sin markay 45 ii tahayna waa radical 2/2 kabacdi waan isku dhufanaya igu dhufo waa 6 4 plus radical 2/4 baan dhahayaa marka hooseeya mid ka soo qaada radical 6 plus radical 2/4 baan dhahayaa sin marka inta ayay soo baxday sin 105 intan ayay ii leegtahay waa ila fahantaan u malaynaya waad fahantaan jeclahay su-aasheena kale haddaan usoo noqdo cos baan dhahayaa 2 pi over 3 baan dhahayaa minus 6 pi over 6 baan dhahayaa marka intan haddaan aan qoro maxaan dhihi intan u fiirsan cos baan dhahayaa alpha minus beta maxay la mid ahayd waa cos alpha cos beta plus bay noqonaysaa halkaasi markay xaggan minus ita halkaasi plus bay noqoni maxaan dhahayaa markaa sin alpha sin beta baan dhahay markaan sidaa dhaho maxaan haystaa inta iyo inta maxaan dhihi markaa waa alpha iyo beta wey markaa maxaan dhahayaa cos 2 pi over 3 cos pi over 6 baan dhahayaa kana plus kana maxaan dhahayaa sin 2 pi over 3 sin pi over 6 marka u fiirso radian haddaan soo isticmaalo saddex u qeybi 180 waa 60 igu dhifo 2 120 marka 120 markay tahay cos maxay noqonaysaa negative 1/2 way noqon haddana kan kalena waa 30 waayo marka maxaa yeelaya radical 3/2 plus baan dhahayaa kana muxuu noqon radical 3/2 kaasna muxuu noqonayaa 1/2 kabacdi waan isku dhufanayaa waa negative radical 3/4 plus radical 3/4 marka way kala jarmayaan 0 baan helayaa 0 ayay soo baxaysaa marka ay intani waxa ila mid tahay haddaan ku sheego waa 120 iyo 30 marka cos maxay noqonaysaa waa 90 degree markay 90 degree tahay ayay every tahay x waad fahantaan u malaynaya su-aasheena kala haddaan galno cos 5 pi over 12 baan dhahay 5 pi over 12 markaan sidaa dhaho maxaan dhahayaa intan haddaan sideenni aan kusoo noqono radionkii aan isticmaalno maxaan dhihi 180 over pi iyo pi isla saar markaas la saaro pi iyo pi intan maxay la mid tahay markaa waa 5 times baan dhahayaa 18 waan kala qaadayaa 10 over 6 times 2 baan dhahayaa haddana kaasaa sii kala qaadayaa waa 6 times 3 baan dhahayaa times 5 times 2 baan dhahayaa over 6 over 2 kabacdi 5 iyo 5 6 iyo 6 يعني 2 iyo 2 baan ujeedaa iyo 6 iyo 6 markaa isku dhufo waa 25 saddex haddana kusoo dhufo waa 75 marka intaas maxay leegtahay cos intan 75 bay leegtahay marka 75 kii baan kala qaadayaa markaan kala qaado maxaan dhahayaa horta cos baan qoranayaa cos baan dhihi alpha plus beta yahay la mid ah cos alpha cos beta minus baan dhahay halkan hadday plus ii tahay halkaas waa minus
sin alfa baan dhahayaa sin beta kabacdi waxaan dhahayaa waa 45 plus 30 baan dhahayaa yaa ila mid ah sin 45 ayna cos 45 cos 30 minus sin 45 sin 30 baan dhahayaa marka cos markay tahay 45 waa radical 2 over 2 baan dhahayaa cos markay tahay 30 waa radical 3 over 2 baan dhahayaa minus baan dhahayaa sin marka inta ay tahay waa radical 2 over 2 kabacdi intaasna waa 1 over 2 waan isku dhafanayaa maxaan helayaa radical 6 over 4 kana minus baan dhahayaa 2 over 4 ayay maxaan haystaa waa radical 6 minus radical 2 over 4 ayay soo baxday waad fahantaan malanayaa inta ayay soo baxday waad fahantaan jecla intaas intan ayay ii leegtahay haddaan dhaho cos 70 degree cos 40 degree plus sin 70 degree sin 40 degree aan dhaho maxaan ogahay u fiirso su'aasha waxaan ogahay maxayna inuu yahay cos alpha minus beta inuu yahay waayo hadduu halka hore minus noqdo halka dambe waa maxayna waa negative way way la fahantay marka maxaan dhihi maxayna cos ayaan qorayaa oo ah maxayna cos alpha maadaama halkaas plus yahay maxay noqoni minus bay noqonaysaa saa ogo markuu halka hore noqdo plus halkan kalena waa minus marka maxaan dhahay plus sin alpha sin beta baan dhahay kabacdi waa 70 betaduna waa maxayna waa 40 waa 40 waa isla fahmay inta marka maxaan dhahayaa cos baan dhahayaa intana cos boqori baa ku qoro cos 70 aye cos 40 plus baan dhahayaa sin 70 sin 40 baan dhahayaa marka intana maxay la mid tahay waa cos 70 negative 40 inta ayay la mid tahay marka kala jarba waa imisa waa 30 maxaan dhahayaa marka waxay la mid tahay radical 3 over 2 baan dhahayaa cos markay tahay 30 waa inta waad fahantaan malanaya su'aasheena kala u fiirso cos 20 baan dhahayaa haddana cos baan dhahayaa 40 minus baan dhahayaa marka sin 20 sin 40 baan dhahayaa waxaan ogahay maxayna in halkaas haddii marka ii noqoto minus halkii kale maxay noqonaysaa plus bay noqoni markasta saa wax xusno cos baan dhahayaa alpha plus beta bay noqonaysaa markuu halkani plus yahay halkaas minus bay noqonaysaa alphadu maxayna waa 20 betaduna waa 40 ka weji waa isla fahnay maanta marka maxaan dhahayaa maxayna cos 20 oo loo geeyay maxayna 40 waa 60 cos 60 baan dhahayaa marka cos markay 60 ka ii tahay waa maxayna waa 1 over 2 waaba intaaba bay la fahantaan malinaya jawaabtaas su'aasha waa intaas ay sin baan dhahayaa sin boqoliyo toban baan dhahayaa cos 25 plus baan dhahayaa cos boqoliyo 10 sin 25 baan dhahayaa sin 25 markaa dhaho maxaan ogahay kan hadduu halkan plus yahay halka kalena waa plusun marka sin alpha plus ayaan dhahayaa kabacdi intan ayay la mid tahay marka waa sin alpha hadduu plus yahay halkana plus bay noqonaysaa markuu siinta yahay saa la hayso markaan sidaan qoro maxaan dhahayaa maxaan haystaa alfada 110 betadana 25 marka isku gee sin 110 loo geeyay 25 waa 135 ayaan haystaa 135 markaan haysto graafka haddaan jeexdo halkaa weeye waa waaxda labaad marka waaxda labaad halkaas iga soo bilaabmay xagga waa 165 halkan maxaan haystaa 45
45 markaa 45 oo siina waa maxayna waa radical 2/2 ay noqonaysaa radical 2/2 ay soo baxday way la fahantaan u maleynaya intaas intana ilag tahay haye sin baan dhahayaa 5/2 cos baan dhahayaa pi/12 negative baan dhahayaa cos 5/12 sin baan dhahayaa pi/12 baan dhahayaa markaan sidan dhaho waxaan ogahay intaan ogahay kabacdi maxaan dhahayaa halkaas waa minus un bay ahaanaysaa kabacdi maxaan dhahayaa 5 na sin alpha negative haddii waa negative beta yaa ila mida maxayna sin markuu yahay maxayna waa sin alpha cos beta negative cos alpha sin beta baan dhahayaa markaas maxaan dhahayaa maxayna intani waa maxayna waa alfada intaasna waa betada isla fahanay intaas kabacdi maxaan dhahayaa waxaan dhihi sin 5/12 negative baan dhahayaa 1/12 markaa ka jar waa maxayna waa 4/12 oo siina hal baan ka jaray kabacdi halkayga timid waa 4 times 3 4 pi markaa 4 iyo 4 baan isla saaraya maxaan haystaa pi/3 baan haystaa pi/3 markaan haysto sin waa maxayna waa 60 bay ila mid tahay waayo 183 u qaybi waa 60 markaa 60 radical muxuu ila mid yahay 3/2 buu ila mid yahay waad fahantaan u maleynaya hadday tahay markii hore soo booqatay channelkan subscribe saar arday kastoo Soomaali oo taqaano meeshin u dir uga faa'iideysta halkan mas'uuliyadda inagayna saaran tahay waa anigoo reelina. Assalaamu calaykum waraxmatullahi